17 August 1991 ayaa wiilkaygii Liibaan xabadi wadnaha kaga dhacday. ilaa 78kiina wiilasha Soomaaliyeed saasay u leeanayeen. marka anoo wiilkayga ku halqabsanaya ayaan aabe iyo hooyo kasta oo ilmahoodii ku waayay dagaalka sokeeye tacsi waxaan uga dhigayaa gabagan magaciisa la yiraahdo barbaar khayr leh baa tahay. wuxuu yiri Liibaan bishaare ma adoo barbaaro bila iyo 6 sano jira tuuga iyo been iyo boob iyo khiyaamiyo bari dhiig islaamka ah oo waajib baaqdiyo faral eebba burino dambiyaal isbiirsaday buugaaga gelino rabbi ka badbaadsha shalay lagu buddhigayo bartii lama huraankiyo beydkaagi aakhiro barko iilka lagu yiri fal balaaya huriso berigii aad dhalatee ku soo biirtay dunidan ka hor nagu bilowdo beelaha dhex marayba ummadii burburiyo boqolaal saqiiro aan wax bi'in sidaada baaruudu leefto qaar baa u baaba'ay cudur iyo bukaan iyo baahi iyo gaajo beelaan qof laga arag inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. sokeeyahan balaayadu ugu yeertay buunkee aqli kala badbaadshiyo garaad kala bogsiiyo maskax bilicle waayaad ku dhex baaba'deeno kaligaa bilaawaha lagulama bareerine daadka beesha qaadiyo madficiya baroonko caasimad bartamaheed bulsho ruux walbale iyo boqolaal qof joogaan bilaash loogu laayaa kugu yimid bartaade aabbo raaxa bogashada qabrigaaga bilicda leh bismillaahi hoyashada gurigii barwaaqee rabbi kugu ballamiyaad caawaba ku baride. bashiir aabba Liibaan ilaah been ma sheego barbaar iyo qof weyn iyo ifka ruux u soo baxa bili aadan muuqdiyo dhirta ubaxa bixisiyo bah kastaba ha sheegtee xayawaanka badan iyo noolaha bidhaan loo indhahaaga buuxshiyo kuwaan baalashu arkayn makhluuq oo dhambari iyo ballan loo qabtaa jira.